wadada isku xirta degmooyinka Warshiikh iyo degmada Cadalle ee ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa dhibaatooyin dhinaca marista ah ku qaba shacabka iyo gaadiidleyda ku safra wadadaasi maadaama wadada maristeedu ay aad u adag tahay sababtoo ah waxaa gooyay bacaad aad u fara badan mana lahan wada toos ah ee la marayo iyadoo saameyn ku yeelatay dhibaatadaasi isticmaalka wadada dadka da'da iyo haweenka umulaya ee loo soo qaadayo magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxa ay qaarkood ku umulaan wadada qaarna way ku umul raacaan waxaad arkaysaa gaadiidka isticmaala wadadaasi ee ku jira bacaadka iyadoo ay indhaha ugu qabanayaan gaadiid ku jira bacaad oo rakaabkii saarnaana ay ku rafaadayaan safarka aad ku fog ee ay ku dhibaatoonayaan bulshada isticmaala wadada waxayna u baahan yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo dadka safareyda ah ee isticmaala wadada in loo dhiso wadada isku xirta degmada Cadalle iyo degmada Warshiikh ee ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho si dadka isticmaala ay ugu fududaato isticmaalka wadada maxamed xasan mataan oo ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka codsaday dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle inay gacan ka geystaan sidii loo dhisi lahaa wadada isku xirta degmooyinka Cadalle Warshiikh iyo caasimadda magaalada Muqdisho si bulshada ay u helaan adeegyada ay u baahan yihiin dawladda federaalka gaar ahaan ka codsanayna inay hay'aday gacan weyn naga siiso maadaama يروح بعادة أبارة إجرام كمرين وضع بانهلنا استحر شو ورشة لا يحضر تطلب قص كل عن حبة مدام كانوا حبة لو هيك شبه لنا أي لقالوي كله دي وضع الحاجات جيو تطلب كلوميسي كده دي آذان جد بار الآن يو رباطنا جدو طبعا كحسنا دولة هيك شبه لبا دولة بسير كده إن أي كعنوين نجسيان وورين سيد وضع أنطول الهيد استحرتو يكوين ورشة يحضر يمكنش استحرتو الهيد anigoo ka mid ahaa safarka wadada isku xirta degmada Cadalle Warshiikh iyo caasimadda magaalada Muqdisho isla markaana ka mid ahaa dadka ku safray wadadaasi ayaan ii suuragelin in aan waraysi ka helo shacabka isticmaala wadadaasi markaad maqashid safarka degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa durba kugu soo dhacaya dhul ballaaran oo aan lahayn wax geed ah isla markaana buux dhaafiyay bacaad aad u fara badan iyo buuro waaweyn ayadoo aan jirin wada toos ah oo ay marayaan gaadiidka iyo shacabka isticmaala waxaana mararka qaar laga yaabaa in gaadiidka uu galo shilal ka dhasha dhimasho iyo dhaawac maadaama buuraha oo ka samaysan godad waaweyn isla markaana laga yaabee in gaariga uu ku dhaco xilliyada habeenkii ay isticmaalayaan wadadaasi hodad waaweyn ee ka qodmay buurahaasi haddaba waxaa loo baahan yahay in loo wada istaago sidii loo dhisi lahaa wadada isku xirta degmada Cadalle iyo degmada Warshiikh ee ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo caasimadda magaalada Muqdisho si ay u fududaato horumarada dhinacyada ganacsiga iyo adeegyada arrimaha bulshada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe haddaba waxaa loo baahan yahay in loo wada istaago sidii loo dhisi lahaa wadada isku xirta degmada Cadalle degmada Warshiikh iyo caasimadda magaalada Muqdisho si ay u fududaato horumarada dhinacyada ganacsiga iyo adeegyada arrimaha bulshada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho